بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله إلهي مجعيس أينكو بالله سورة الله سو الرحمن نحريس جود نحريستا. الله سو الرحيم نحريس خاصة نحريستا. الحمد مهد كستا لله اللي أسقناتي الله سو رب العالمين. عالمين مخلوق رب قد الله سو الرحمن نحريس جود نحريستا. الله سو الرحيم نحريس خاصة نحريستا. الله سو مالك يوم الدين إسأبالنت مالك هذا إسكاله. إياك كلغا أيا نعبدك عابدينا وإياك كلغا أيا نستعين كالمك دلبينا. اهدنا إله نهنوني الصراط جد وهنوني المستقيم توسا صراط الذين كوجد كود إله وهنوني أنعمت آذون عميس عليهم كركوذا غير المغضوب كو لو عرود جد كود عن أهين عليهم كركوذا ولا الضالين كوي اللومين عن هين. سورة الفاتحة بإذن الله ماشان مانتا أي تاريخ ذو ميلادك أي تهي سد حدي بشي سديدات لما كن إلى باتنك تن هجريك أحنا أي تهي كن أفر بقل أفرتن إيكو تمن إيه سد حدي بشي لما يتمنات دي الحجة وحنك بلابين هل كان تفسير كوبان أونو أخردونو مالين كستا إن شاء الله تعالى. marka suuratul faatiha waxay kamid tahay suuradaha quraanka si gooni ah loo sheegay fadligooda. quraanka asigoo kulligiis fadli badan ayaa haddana waxaa jiro suwar si gooni ah loo tilmaamay fadligooda ayay kamid tahay. suuradahaasna haddaan qaar ka sheegay waxaa kamid ah suuratul faatiha, suuratul baqara, suuratu aali cimraan, suuratul kahfi, suuratul mulki, suuratul kaafiruun, suuratul falaq, suuratul naas. آياتنا ويجران سيقوني الله شيء أيجنا وحاكمه آية كرسي إيوه لماذا آية أو أودا ميس سورة البقرة مركا صور آيات سيقوني الله تعريفي آيات جرى متقانا الله شيء سورة سيكمتها مركا سورة الفاتحة ومكية سيد راجحة مدنين ولا شيء إني تهي. سورة الفاتحة كلمات كذو وحيكا كوبان تهي لباتن إيشان كلمو حروف تادن وحاويان بقول ثمان يسد حرف أي كوبنتها سورة. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. إلهي سبحانه وتعالى سو مدجن كم سو دجن توراة الحديث إنجيل با قرآن حتى سورة لمدة سورة وحل هذا مجعيال بدن وحكم ذا الفاتحة، الحمد، الصلاة، أم الكتاب، أم القرآن، المثاني، القرآن العظيم، الشفاء، الرقية، الأساس، الكافي. إمام القرطبي وحو يري سورة وحي ليدها هاي لبا iyo 10 magac ay leedahay ayuu yiri Imam al-Qurtubi. suuradan waa rugn min arkaan salaat waa tiir kamida tiirarka salaada kamida. suuradan fadligeeda waxa ku tusaya xadiiskii asxaabta qaar kamida ayaa safar ku jiray markaasii waxay soo mareen cid markaasii waxay ka codsadeen inay marti geliyaan markaasii ciddii waxay ku dhaheen idinma marti gelinayne hortiina u socda. cid bakhiiliina ay ahaayeen oo xun markaasii asxaabtu waxay iska degeen ciddii meel u dhow oo duleedka cidda agteeda ay iska degeen markaasay waxaa la qaniinay suldaanka cidda odagii cidda ayaa la qaniinay markaasay u imaadeen asxaabtii ciddii markaasay waxay ku dhaheen odagii ayaa mataqaana nagala qaniinay baahla qaniinay ma awaysa qaniintay ma dabaqaroofa qaniinay ma wax ka Allahu a'lam. markaasay waxay ku dhaheen suldaankii odagayni ayaa nagala qaniinay wax daawa bal sheega. markaas Abu Saciid al-Khudri ayaa ku jira asxaabta markaas wuxuu yiri ana garanayo laakiin bishardi idinma daaweynayno ilaa inaana siisan mushaar mooyaane maxaa yeelay shalay adinka waana xumaysan marka idin marti gelinay oo idin marti mataqaana idinka dalabnay inaana marti gelisaan
shal waa noo diideen marka bishardi muqaabilaan rabnaa ujra rabnaa mushaara rabnaa inaan siisaan waxay dhaheen diyaar waay nakeena kaala daaweeya asxaabtu waxay ku akhriyeen suuratul faatixa 7 mar ayay ku akhriyeen odaga isla markii uu raystay markaas waxay ka soo qaateen 30 neef oo ari ayay ka soo qaateen arigii ma qaybsanine intaana qaybsanin ay nabiga sallallahu alayhi wasallam u geeyeen markaas ay weydiiyeen inuu xaraam yahay inuu xalaal yahay nabi allah waxay dhaheen qisadii uu sheekeeyeen markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yaa idin sheegay in suuradan la isku tufo yaa idin sheegay in daawata suuradan ariga waxa iga siiyay ayuu dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam markaas ay wax ka siiyeen suuradan fadligeeda aad ay u fara badan yahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab salaadi uma jirto qof aan akhrin suuratul faatiha aan akhrin salaad uma jirto bal culimada qaar waxay leeyihiin qofka suuratul faatiha qof aan garanayn waaba gaalay leeyihiin culimada qaar suuratul faatiha maalinka iyo habeenkii 5 salaadood oo waajibka waxaanu akhrinaa 17 jeer duhurka meeqa waay 4 casrka meeqa waay 4 maghribka meeqa ragca waay 3 cishaa meeqa waay 4 subaxa meeqa waay 2 isku dar meeqa ragca waay 17 ragca waay 17 faatiha ayaa ma taqaana meesha ku jirta marka ragca kasta soo faatiha lama akhriyo markay ugu yar tahay maalinka iyo habeenkii waxaanu akhrinaa suuradan 17 jeer dadka sunnooyinka dukadana way ka sii badan yihiinbo suuradan waa suurad aad ma taqaana u fadli badan fadligeedana axaadiista nabiga ayay ku sugan tahay sallallahu alayhi wasallam waxa u daliila xadiiskii abi saciid ibn al-mu'alla nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri abi saciid ibn al-mu'alla abi saciid waxaan ku barayaa suurad quraanka ugu weyn intaana masaajidka ka bixin markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam abi saciid wuxuu yiri gacanteeda ayuu nabiga qabtay sallallahu alayhi wasallam markaasuu wuxuu doonay nabiga inuu masaajid ka baxo markaasaan ku dhiga ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasaan waxaan ku dhahay nabi allah soo iima ballan qaadin inaad i barayso suurad quraanka ugu weyn markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alxamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u al-mathani wal-qur'anu al-'azim alladhi utiituh waxaa kaloo fadligeeda ka mid ah xadiiskii qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi nisfayn adoonka markuu yiraahdo alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay muxuu leeyahay xamidani cabdi adoonka markuu dhaho arrahmaan arrahiim ilaahay muxuu leeyahay asna calaya cabdi adoonka markuu dhaho maaliki yawmiddin ilaahay muxuu leeyahay majjadani cabdi adoonka markuu dhaho iyyaka nacbudu wa iyyaka nastaciin ilaahay muxuu leeyahay hada bayni wa bayna cabdi ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي وإياك نعبده ولعبدي ما سألنا وإياك نستعين ولا جوضة سو إلهي كلمة مويدي سنين أدونك مركو يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحولي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وعاكلوا فضل هذا كمدا ولا لما فضل هذا لما كوبي كره وعاكمدا حديثك أبي بن الكعب أبي بن الكعب أو صلاة كجرة أيا النبي صلى الله عليه وسلم أو وعي أبيو مركز أبي صلاة ديس إسكوتي نبي ما أجي من صلى الله عليه وسلم أبي بن الكعب مركز صلاة دي أما يستي أيو النبي صلى الله عليه وسلم أو إمادي أو سلامي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري أبيو مركان كوعي محاي ugu jawaabi weysay oo ii ajiibi weysay markaas ubay wuxuu dhahay nabi allah salaadan ku jiray markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ubayow soo ilaahi ma dhihin yaa ayuha alladina aamanu istajiibu lillahi wa lirrasul idha da'aakum lima yuhyikum markaas nabi sallallahu alayhi wasallam ubay wuxuu ku yiri waxaan ku barayaa suurada quraanka ugu weyn suuradaasna nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay inay tahay suuratul faatiha marka ubay bin al-ka'ab salaadu ku jiray waxay ahayd salaad sunna ah salaada day sunna tahay xataa nabiga iska dhaafay xataa waalidka haduu ku waco waa la ajiibaya day salaada ay sunna tahay ama hadii waajib tahay salaadu shanta salaado waajibka ay kamid tahay lama ajiibayo suuratul faatiha tafsiirkeeda aan galna marka suurada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku bilaabay bisin ku bilaabay maxaa yeelay bisinka waxaa la doonayaa qofka muslimka markuu wax qabanayo inuu ku bilaabo bisinka marka guriga ka baxayso waxaa la rabaa inaad tiraahdo bismillaahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah
markaa cuntada cunayso inaad tiraahdo bismillaah, markaa hurdayso inaad tiraahdo bismika allaahumma amuutu wa axyaa. nabi sal alay wasalam markii ilaahay subxaana wa tacaala uu kusoo dejinayo qur-aanka suuradda ugu horreysay wuxuu ku yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq. nebi nuux iyo kuwii rumeeyey markii doonidii lagu qaadaya maxaa la yidhi wa qaala arkabuu fiiha bismi illaahi majrayha, magacaas ku fuulaa la yidhi doonida. nabiga sal alay wasalam markuu waraaqaha uu qori jiray rasaalooyinka uu diri jiray raggii wuxuu ku bilaabi jiray bisinka, markaas kadib ayuu magaciisa sheegi jiray nabiga sal alay wasalam, sidii ninkii la dhihi jiray najaashi oo soo islaamay kadib, maqowqis, kisra, hiriqla. nimankaas markuu nabiga sal slam waraqaha uu u diri jiray bisinka ayuu ku bilaabi jiray nabiga sal slam bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay subxaana wa tacaala mahad ayuu leeyahay. ilaahay in lagu mahadiyo ayuu jecel yahay. xatee ilaahay subxaana wa tacaala addoonka wuxuu raalli ugu naqdaa inuu hal mar wax cuno oo yidhaahdo alxamdu lilaah, iyo inuu hal mar wax cabo oo yidhaahdo alxamdu lilaah. ilahay in lagu mahadiyo uu jecel yahay. ilaahay wuxuu ku siiyo dham ku mahadi, xataa musiibooyinka haddii kugu dhacaan ilahay inaad ku mahadisaa lagaa doonaya. maxaa yeelay haddoo kale hergebaa kugu dhacay. ilaahay subxaana wa tacaala hergeb cudurka weyn inuu kugu rido wou awoodi karay, laakiin kuguma ridin. marka mahad celin ayaa lagaa rabaa mar kastaba adiga. rabbi alcaalamiin, ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkao dham rabbigood waaye. haddii makhluuqaadka maanta la weydiiyo rabbigiin yaa waaye, xatee gaalada waxay ku leeyihiin ilaahay weeyaan. arraxmaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u naxariistaa adduunka marka la joogo cid kasta, xatee gaalada, xataa ilaahay kuwa ku caasiyo habeen iyo maalin kuwa ku caasinaya, xataa ilaahay subxaana wa tacaala wuu iskaga naxariistaa weeyaan. arraxiim, ilaahay subxaana wa tacaala maalinka akhre markii la gaaro wuxuu u naxariisanaya mu'miniinta bisle. maalik yowmiddiin, ilaahay subxaana wa tacaala maalinta is-abaalinta maalinka qiyaamaha laga wadaahe allah iska leh. maxaa lagu gooni yeelay marka ilaahay maalinka qiyaama bis inuu leeyahay? soo ilahay wax kasta ma leh? nacam, ilahay wax kasta ayuu leeyahay, laakiin maalinkan waxaa lagu gooni yeelay maalinkan cid oo boqortooyada ku haysata ayaan jirin. ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka dham ayuu inaa fariis ku qabto wuxuu leeyahay liman ilmulku lyowm, maanta yaa boqortooye iskale oo aniga hayn, cid u jawaabtaa la weynayaa. markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy lilaahi alwaaxid alqahaar, asigaa isku jawaabaya ilaahay jala jalaaluh. ihdina siraada iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. iyaaka nacbudu, ilaahay keligiisaan caabudaynaa, cid kale ma u yeerinayno. ilaahay subxaana wa tacaala keligiisaa cibaada iska leh. wa iyaaka nastaciin, ilaahay keligiis ayaan kaalmo weydiisanaynaa. ilaahay asoon umuurahada kugu kaalmeyn, umuuraha ma samaysan kartaa? ma hurdi kartaa ayadoona ilaahay kugu kaalmeyn? ma soco kartaa ayadoona ilaahay kugu kaalmeynin? wax ma cuni kartaa ayadoona ilaahay kugu kaalmeynin? wax ma maqli kartaa ayadoona ilaahay kugu kaalmeynin? ma hadli kartaa ayadoona ilaahay kugu kaalmeynin? wax ma arki kartaa ayadoona ilaahay kugu kaalmeynin? idaa lam yakun cawnu min allahi lilfataa fa awalu maa yajni calayhi ijtihaaduhu. nabiga sal ly slam wuxuu yidhi idaa sa'alta fas'al illaah wa idaa istacanta fastacin billaah. markaa wax weydiisanaysa ilahay wax weydiiso, addoomankan masaakiinta ha weydiisanay, ilahay wax weydiiso subxaana wa tacaala. marka wax kaalmo weydiisanaysana ilahay kaalmo weydiiso subxaana wa tacaala. ihdina siraada almustaqiim, ilaahay waddada toosan ugu hanuuni. waddada toosanna waxaa laga wadaa waddada islaamka waaye, dariiqulislaam. ilahu nagu toosi. waddadaas marka la sheegayo ma anaga ugu horeyno mise waa nagula horreeyey? waa nagula horreeyey. siraada aladiina ancamta calayhim, ilaahay kuwa jidkooda nagu hanuuni aad u nicmayso korkooda. kuwaasna waxaa waaye suuratu nisa lagu sheegay waman yudic illaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin kayri almaqduubi calayhim, kuwa loo carooday jidkooda aan ahayn. kuwa loo caroodiyaa waaye yahuud weeyaan, calayhim lacnatullah. bi'sa ma shtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baqin an yunazila allahu min fadlihi calaa man yashaau min cibaadih fabaa'uu biqadabin calaa qadab walilkaafiriina cadaabu muhiin. waladdaaliina, kuwii lumayna aan ahayn. kuwii lumayaa waaye nasaara, nasaaro weeyaan. qul yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum kayra alxaqi walaa tattabicuu ahwaa'a qowmin qad dalluu min qabl waadalluu kasiira wadalluu can sawaa'i sabiil lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuud wa ciisa bni maryama dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun. qur-aanka asaa tafsiraya weeyaan. alqur'aanu bilqur'aan, alqur'aanu bisunati wax layidha ayaa jira. bismi illahi raxmaan raxiim, ilaahay magaciisaan ku bilaaba suuradan. allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista, allahaasoo arraxiimi naxariista khaasa naxariista. alxamdu mahad iyo mahad kastaba iyo amaan lilaahi alle u sugnaatay, allahaasoo rabbilcaalamiina makhluuq rabbigood ah. allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista, allahaasoo arraxiimi naxariista khaasa naxariista, allahaasoo maalinka yowmiddiini maalinka is-abaalinta iska leh. iyaaka kaligaa ayaa nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka kaligaa ayaa nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa.
اهدنا إلهنا هنوني الصراط جد وهنوني المستقيم توصن طريق الإسلام وهنوني صراط الذين كو جد كود إلهنا وهنوني أنعمت أو نعمة عليهم كركودا غير المغضوب كو الله عرودي جد كود أنا هين عليهم كركودا ولا الضالين كو لمن أنا هين. هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.